السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فرانسيسكا ayaa duqeymo u geystay muslimiinta Maali cidna kama hadli karto duqeyntan afkaarahan waxay ka tarjumayaan nacayb iyo waliba dhibaateynta muslimiinta intii lagu guda jiray dagaal dhaqameedka islaamka kaasi oo ay ku jirto masiirka cilmaaniyiinta ee Faransiiska iyo waliba dastuurka Faransiiska cilmaaniyada ah oo ay ku saleysan tahay oo kaliya fikradaha xorriyatul qowlka. Faransiiska ayaana wajahaya weerar aad u xun intii lagu guda jiray howlgalkii military oo ay ka wadeen bartamaha Maali bishii Janaayo 3 2021 weerar cirka ah oo la sheegay in uu ahaa Faransiiska cidii geysatay ayaa lagu dilay 19 qof oo rayd ah halka Faransiiska uuna beeniyay in uu bartilmaameedsaday uuna dilay ilaa 30 qof balse dadka tuulada ayaa sheegay in duqeyntan lala bartilmaameedsaday aroos halka MSF ay sheegtay in kuwa la daaweeyay ay ahaayeen dad ah ilaa iyo haddana baaritaano ay socdaan malaha ma ogaan doonaan sheekadan oo dhan iyo sababteeda. weerarkan ayaa inta badan u muuqday jabsashadii kabitoolka ee Mareykanka xilligaana waxaa la weeraray saldhigyadii xorriyadda iyo dimuqraadiyadda waxayna sidoo kale go'doomiyeen dadkii goonida isku taagay ee muslimiinta dunida iyagoona u dhimanaya in ay lahaanshaha dimuqraadiyadda ee reer galbeedka haystaan oo ayna taageeraan. dhimashada dadka rayidka ah ee dagaalkan ma cusba waxaa sii kordhaya ee la yaabka ah ayaa ah aasaaska lagu soo saaray go'aamada dhimashada taasi oo mararka qaar ka baxda meelo ka baxsan xadka ay inta badan shacabka aqbali karaan. tani waa kiisaska tirada badan ee dhimashada dadka rayidka ah oo u badan muslimiinta waana dagaal loogu magac daray la dagaalanka argagixisada. sanadka 2017 militariga Mareykanka waxay go'aansadeen in la tixraaco sharciyada la dagaalanka ka qaybgalka duqeymaha cirka ee Afghanistan taasi oo keentay koror aad u weyn oo ku yimid dhimashada dadka rayidka ah laga soo bilaabo sanadihii ugu dambeeyay ee maamulkii Obama ilaa sanadkii ugu dambeeyay ee xogihii la diiwaan geliyay ee maamulkii Trump. dhimashada dadka rayidka ah ee weerarada cirka ee Mareykanka ee Afghanistan waxay kordheen 330% dadka rayidka ah reer Afghanistan iyagoona bixiyay qiimaha dhiman dhinacyada sii kordhaya ee rabshadaha iyagoona isku dayayay in ay ku guuleystaan waraaqadaha si ay ula hadlaan wada hadallada u dhaxeeya Mareykanka iyo Taliban. xogaha marka loo barbar dhigo 10 sano ee ugu horeeyay waxay muujinayeen in 95% kororka dhimashada dadka rayidka ah ee Mareykanka iyo waliba duqeymaha cirka ee isbahaysiga intii u dhaxaysay 2017 ilaa 2019 inay korodhay. intaana waxaa dheereed intii lagu guda jiray wada hadallada Afghanistan gudaheeda in ciidamada cirka ee Afghanistan in ay dileen dad aad u tiro badan oo rayd ah. sanadkii 2018 oo kaliya duqeymaha xagga cirka ah waxaa ku dhintay 3800 oo rayd ah. waxaan isbarbar dhigi karaynaa weeraradan si ka duwan duqeymihii dagaalkii labaad ee dunida. Anan Gobal maqaalkiisa wuxuu ku sheegay dagaalkii Mareykanka ee raydka ee Suuriya wuxuu dib u xusuusinayaa qarxii 1940 iyo labadii ee Ingiriiska lagu qaaday aagaga shaqaalaha ee magaalooyinka Jarmalka cabsi darteed sida uu goor dambe sheegay Churchill. Gobal wuxuu farta ku fiiqay kursiga Faransiiska ee xulafada diblomaasiyadeed ee hoosta ka duulaya markii la weeraray Faransiiska Fitch iyo xulafadiisa Jarmalka iyagoonan aan la burburinayn magaalooyinka oo dhan lana ilaalinayo nolosha kuwa ku dhex jira. si kastaba ha noqotee waxay isugu yeereen kuwa haysta koonfurta iyo waliba taliyayaasha dunida. muslimiinta xiriirkooda midba kale wuxuu dhaafsiisan yahay oo kaliya dhammaan aqoonsiyada qarankooda ama wadankooda in ay ka xaliyaan khilaafka ka dhex jira waana isku xirka ugu adag dhul kasta ama xitaa dhaqamada guud ee caadiga ah ayna adeegsadaan dalalka reer galbeedka si ay uga hortagaan in ay gartaan danahooda iyo waliba cadowgooda cidda uu yahay waana sababta dal kasta oo muslim ah uu dhibaatada ugu jiro maanta waana qiyam la wadaagay. sidaa darteed dhibaatada loo geystay muslimiinta aan hubaysnayn waxay dhaawacaysaa dhammaan muslimiinta dunida ku nool. Neil Ronig wuxuu ku tilmaamay buugiisii Asymmetric War ka fogaanshaha qataraha iyo dagaalka kaliya ee anshaxa dilalka ee naxariis darada ah in ay tahay wax aan loo baahnayn isagoona ku daabacay daawacadii soo baxday sanadii 2020 beejka tirsigiisu yahay 195. maxaa sharci ahaan la ogol yahay maahan in ay ahaato mid anshax leh. khilaafka u dhaxeeya sharciyada dagaalka anshaxa had iyo jeer soo ifbaxa xilliyada cilaaqaadka uu jiro. akhlaaqdu waxay ka timaadaa oo kaliya ku dhaganaanshaha iimaanka taas oo si gaar ah la iskaga indha tiro marka loo eego cilmaaniyadda. siyaasadaha Faransiiska ee ku wajahan muslimiinta dalkooda iyo waliba dhaqankooda sharciyeed ee anshax xumida waxay muujinayaan guul darada dimuqraadiyadeed in ay damaanad qaadayso xurriyadda ayna sheegayaan
sheeganayaan in ay tififtireen ayna matalayso danahooda. tani waxay si cad u muuqataa sharciga cusub ee loo dejiyey in lagula dagaalamo muslimiinta, waxayna u yeeraan gooni gooso, taasi oo ay ansixiyeen aqalka hoose ee golaha qaranka ee Faransiiska. taasina waa sababta loo abuuray ujeedooyinkan in la helo meelo dhexdhexaad ah oo u dhaxeeya diimaha kala duwan ee wada noolaanshaha. su'aalaha la isweydiiyo ee nacaybka noocaani oo kale ah ee diinta ayaa u baahan in laga fiirsado siyaasadaha Faransiiska iyo xiriirka uu la leeyahay gumaystayaashii hore. qaar badan oo ka mid ahna ay weli leeyihiin dawlado taageersan Faransiiska. mid ka mid ah su'aalaha ayaa ah sidee dawlad taageersan Faransiiska ula macaamilaysaa muwaadiniin muslimiin ah. ilaa heerkee ayaa la hurin karaa markii Faransiiska iyo dawladaha hoose ay go'aansadeen in ay qaataan howlgalka military kaasoo ka dhan ah kooxaha hubeysan kuwaasoo ka howlgala wadamada danaha laga leeyahay gudahooda. malaha jawaabtu ma ahan mid dhammaanayso. bishii February 16keedii 2021 Faransiiska ayaa ku dhawaaqay in aysan qorsheynaynin in ay ka baxaan dhawaanahan iyo wax u dhowba maadaama Macron uu ka hadlay danaha ay ka leeyihiin muslimiinta. tani maxay uga dhigan tahay muslimiinta dalkooda? tani macnaheedu ma ahan in wadankan uusan la dhibaatoonin rabshada ka dhex jira gudihiisa, balse ay tahay in uu wax ka qabto dhibaatooyinkaas. hase yeeshee waa in lagu doodaa in faragelinta military ee dawladahan ku haminaya in ay hubiyaan danahooda iyo qiimka dimuqraadiyadeed ay inta badan ku saabsan tahay xasaaradaha bini'aadanimo ee dunida muslimka ah, iyagoona inta badan ku muuqoonaya in ay qaataan dimuqraadiyad, taasi oo iyaga laftirkooda xitaa aan ku dhaqmin isla markaana qaadanin, iyagoona inta badan kala saara diimaha dalalkaas muslimka ay leeyihiin iyo dimuqraadiyadda ay doonayaan, iyagoona inta badan talada iyo hoggaanka dalkaas iyo ummadaas ay u dhiibaan qofka ugu anshaxa xun isla markaana ah qof aan inta badan ku dhaqmin anshaxa.